waxaan ku weydiiyey kalamaan ma dhegaysatid war naga tag oo maxaa dhacay mar dambena su'aal ima weydiin kartid sabab kalamaan ma dhegaysatay markaad leedahay maxay sheegtay ma tiraahi horta sheekadan kalamaana markii aad maqashiin how maxaa tiiriya may erti midii miidaysay maahino dam bam war meeqa ku dhimatay masiibadii dhacday war soobe kadib kii ugu dhimashada badnaayo war meeqa ku dhimatun baa taagantiin ilaa weligiin miya halkay masiibadu shalay ka dhacday iyo soobe 1 kilomitir isku jiraan war saddexda baabuur ma la arki waayo ciidamadii amniga war maalmo ka hor in magaalada lagu jiro waa la sheegay maxaa laga hortagay marka waa laga hortagay oo beena miya joogsi weligiin war ka hortaga ka dabataka ka roon horaa waxaa loo yiri wax la sheegi wax la shahuudiya ka roon war afayeenka booliska wuxuu yiri 10 qofooda ku dhimatay war 30 qof oo ka badan asaaba ka talaabsaday 10 qof oo sheegay maxay tahay warriyo marka uu argagaxsana anigu waxaan la yaabaa dadka cadawga laayo dawladda qarinaysa war nimayo adduunyada markay istaan kale wax u dhacaan ee cadawgu shacabka laayo dawladaha waa sheegaan waana bombooniyaan waliba ee dawladdeenu maxay u qarisaa dadka cadawgu laayo waa la shaqeeyaan abo war dawladdeena kaliya maahan waxba aan fahmaynin cid kastaaba dhacdada ceebta ku oo qaawinaysa waa qarisaa war cid kasta maahane waa siyaasadda waran ee gaashaan warkaas annaka ceebteena ma caadigeena waay war waxaan la yaabay nimanka weerarka soo qaaday inta qaraxday maahan inta kale buskud iyo liindhanaanay wateen waxaana kollay lagu soo yidhi habeenada aad hoteelka ka dhex dagaalamaysaan siicuna iyo la aameedawe warnimiya walaagii shalay dhiimay baa ka darano ay tangeeka dhiidi dadkii shalay meelika dhamada miidyo langaaday haduugi ya madiya godon ha eranga gamtiling roogsidi marka arintu may baan nagdaa kii una dilnana ay la duugnay kii haduuwana ay noolanay war markii hore ahaayeen meyd neegsida warnimada wiilkii ahaa fogaan eeg oo su'aalaha na weydii jiray saakay gadkalu leeyimi inankii waa gabiyey wuxuu yidhi nirig naylihii qadisay oo idaha nuugaysa nin kastoo ikhyaaraba carruur noox ku odhanaysa naxdin iyo beriyahan xanuun noocahaa jiray war fogaanayagaad sheegas walbaba kunduroy hanuunkaada sheegasa dadka dhii shariif leeyahay waan ku degi war intii qaraxa ku dhimatay ma ahane inta dhaawaca la xanuunsanayo ka hadlaya war adinku balaayada kaliya aad aragtaane khayrka ma arkaan indhuyuniye shirkii saddexda madaxweyne ee Itoobiya iyo Eritrea iyo Soomaaliya Addis Ababa inta iskala tageen bay tageen magaalo Baxardaar la yiraahdo hadda waxay falanqaynayeen markii ugu horeysay heshiisyadii ay galeen wixii fulay iyo waxaan weli fulin markii ugu horeysay Ethiopian Airlines waa ka soo degtay shalay aadan cadda airport xiriirkaas iyo faa'iidooyinkaas ma fiirisan miya adinku waa markii ugu horeysay ee madaxweyne Soomaaliyeed ay dhinacyada ka fariistaan madaxda geeska Afrika talana weydiiyaan war saddexda madaxweyne miyay iloobeen Muuse Biixi Cabdi maxay afar uga dhigan waayeen war ya meeli ulma naf laga si aam walka gadiya walaari shariif ada goradaas yaa la duqday Muuse Biixi sheegas may ay wariya war Ismaaciil Umar Geelle oo qabiirkii geeska Afrika ahaa ma la gooday maxaa shirka loogu soo dari waayay war Ismaaciil Umar Geelle DB World iyo Imaaraadku sababsanaya war lagu Imaaraadka kadib barbaran lagu wareejinay war anu waxaan la yaabana wiilasha number 4 inta dadka ku laayay iyagiina la dhigay iyo midka Australia inta hooyada u dirsato kaaga soo shaqeeya istiri qofka shacabka Australia ka tooreyda ku muday asna la dhigay oo isku maalina ciyaalkan maxaa loo sheegay war intaba shabaab iyo Daesh ayaa sheegtay war ulmaado wada fatwooteen weelko wala iska waraabeen ilmaana diidayaan la yiri abu shirko seen loo ciliha war shabaab iyo Daesh yaa Soomaalida ku itixaamay iyaga isku itixaamayniyo mid bashaar qaatiyo hub iyo shaabad gooniya shaki ma leh inay laba shabaab wada shaqeeyaan warnimiyaan war kuusan daldalaasan wal in godoranya doorashadii koonfur galbeed ama dhiyo hayta war ciyaartooyda xulka qaranka Soomaaliyeed maanta ay bixin Itoobiya ay aadin war baabuurtii aan toddobaadka cadaada ku ceshanayno lalahay u baysideen saakan iska sii daynay jawaanadan ciidda lagu shubtayna sideen balay ku dhacdo waana lugeeyeen inay gaalka sidaan baa moodeen war baabuurtii no siin lugeeyeen adika aalima jawaanada arado hab siin wadeen sidifaan ka dhigatan siin wadeen wiligan wala siin ku dhamaasay war jawaanada
iskuma atinee toos baan dagaalka u galnaa war xaara dheeriya ceelbuur maxaad ugu gabanaysa maa shabdhaadiin warnimayo waxaa la yidhi soomaaliya saxaafad xorow kama jirto qaar waxay dawladdu rabtay sheegaana la yidhi waa ku qasban yihiin qaarna waxay mucaaradku rabaanay sheegaana la yidhi iyaguna waa ku qasban yihiin war maxaad beenta u sheegaysaa ma saxaafadan qaraxii dhacaba layfka ka soo tabinaysaad dhihi kartaa ma madax bannaana war kuwa layfka ka soo gala qaraxyada waa kuwa qaraxyada wax ka og saxaafadna maaha war saxafiga jamaalka shukji baaritaankiisa dawladda turkiga waa soo gebagabaysay war saddexdii qaraxoo nambar 4 ka dhacday dawladda baaritaankeeda soo gebagabaysay saxaafad xor inaysan jirin waxaan ku ogaaday sababta hoteelada loo weerarayo weli nooma sheegin war waxa igula yaab badnaa 7 ka hor wiil isku soo dhex sawiray qabri dhexdiisa ayaa ka mid ah dadkii shalay qaraxa ku dhintay aniga qabri haddaan laygu qasbayn dhexdiisa maba tegayo waxaa la yidhi geeridu nin aadan garanayn iyo geeljiray ku roon tahay wariya geeljirig ay awa dhaleen aan weeyaan geeljiray ku roon tahay dadkii dhihi jiray oo magaalada jooga hadday geerida haysataa iska dhacsheen war sidaa maahane waxaan ka naxsanahay cabdifitaax cabdirashiid oo shalay ku dhintay qaraxa aabbihiis cabdirashiid ilqaytana 3 sano ka hor sidaanoo kale weerar hoteelka lagu soo qaaday ku dhintay war maalin walba barortaasaa ku jiraysaan haddaydaan iska celiniyo war meel bilaayika hooyadaasoo ka hergalaasa baroorantee ku kure shacab yahow la cayrsanahayaa hay cabaadina ee iska celiya cadowgiinni baad ka cabsanaysaan aan iska celinayaan ugu garwada cadow u hoosaasiyaa cunay dadkeennii war dawladdaa la rabaa inay shacabka difaacdo war hata waa wicina dad waxa walba jooge warada naga taga war imaaraadka iyo oromo waa isku hiil war ka daaniyo